kacdoonkii berberiska iyo gumaystigii boqortooyadii Roomaanka waa qodobada ugu muhiimsan ee aynu ku daaqaadi doono gudaha barnaamijkeena. inkastoo ay soo mareen geesiyo badani, shucuubta berberisku waxay ahaayeen dad laga tiro badan yahay oo daris la ah boqortooyadii Roomaanka ee aadka u xoog weyneyd. Roomaanku waxa ay isku dayeen in ay la wareegaan oo ay gacanta ku dhigaan caasimadii Berberia ee Malawa. kumanaan ciidan oo aad u qalabeysan ayaa loo soo dhaqaajiyay caasimadii Malawa. walow ciidankii Berberian isku tirahan ay yaraayeen waa kuwa raba difaaca dalkooda, waxaa bilaabmay dagaalkii oo aad u adkaa, dhiig badanina uu ku daatay inkastoo Berberianka laga gacan sareeyay. muddo 2 maalmood markii uu dagaalku socday waxaa jabay ciidankii Berberia, boqorkiina waxaa lagu dilay isla goobtii dagaalka. ciidankii Berberian kuna dhamaantood waxaa laga dhigay maxaabiis, xaasaskoodii iyo carruurtoodina waxay noqdeen adoomo u adeega Roomaanka. caasimadii Malawana waxay noqotay magaalo ay ku amar ku taaglayaan dadkii reer Roomaan. suuqyo aad u waaweyn oo lagu kala iibsado adoomaha reer Berberianka ah ayaa ka furmay magaalooyinka Roma, Genoa iyo Lazio. boqor Alberto Castelli waxa uu amray in jirdil joogto ah loo geysto adoomaha, lagu falo beeraha, dhagaxaantana lagu jabiyo. waxaa soo maray taxadiye aad u adkaa oo hore loogu arag dunida daafaheeda. maalinba maalinta ka dambeysana waxay u ahayd mid mugdi ah, calooliyow iyo mid aad u gaajo badan. kumanaan shacabka reer Berberia ah waxaa hoy u ahaa xabsigii boqor Alberto, balse haddana iyagoo maxaabiista waxay ahaayeen kuwa laabta ku haya qadiyadooda iyo inay dib u yegleeli karaan boqortooyadii hore ee reer Berberia. si kadisa maxaabiistii waxa ay u jabsadeen xabsigii, iyagoo gadoosana waxay gacanta sii mariyeen guuto ciidankii Roomaanka ah, waxayna u muuqdeen kuwa soo ceshan kara madax bannaanidoodii hore. boqorku waxa uu dareensanaa haddii ay madaxa la soo kacaan haleeyadii Berberianisku inay carqalad gelin karaan saamaynta ay Romanisku ku lahaayeen Malawa. waxa uu diray boqorku ciidan la xadlay oo ka hortagay in dib loo qabsado Malawa. ciidan kooban ayay durbadiiba aasaaseen Berberianisku, iyagoo oo dhufaysana ka dhigtay qalcado aad u adag. ciidankii Romaniskuna waxay iska soo xaadiriyeen goobtii dagaalka loo asteeyay. cabaar kadibna waxaa si toos oo bilowday dagaalka. markii ugu horeysay waxaa la jabiyay ciidankii Roomaanka ee boqor Alberto. Berberianiskuna waxa ay gubeen Roma, Genoa, Cagliari iyo caasimadihii waaweynaa ee boqortooyadii Roomaanka. si sahlan waxa ay Berberianisku gacanta ay ugu dhigeen dhammaan soodimihii Roomaanka, waxayna noqdeen kuwo muddo qarniyo ka taliya Roma. taariikhdoodii iyo asaarta xukunkoodina waa kuwo maanta dunida dalxiisayaal badan ay ka soo booqdaan. saad la socoto barnaamijyada dambe subscribe gare.